kormeerkan dheendheenta oo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Elafweyn ayaa ahaa mid ay ugu kurgalayeen xaaladaha dhabta ah ee ay ku sugan yihiin deegaanadii iyo dadkii dhawaan ay khasaaraha kala duwan ay soo gaarsiiyeen roobabkii mahiigaanada ah ee dhawaan ka da'ay geyiga Somaliland ee deegaanka dhanka galbeed ee degmada Elafweyn oo ay ka mid yihiin deegaamada Hulul iyo deegaamadaasi hoos yimaada waxaana ay halkaasi socod ku soo mareen guryihii ay roobabkaasi dumiyeen shacabka ku dhaqan deegaamadaasi iyagoona dadweynahaasi ay warbixin buuxda ay ka bixiyeen saameyntii waxyeelada ay roobabkaasi u geysteen waxa guriga ku jirnay guriga waa nagu dumay macalka aqalkayga waa nagu dumay ana dhaawac u gaarsiin madaxa soo dhagaxay ka dhacay bas yar oo halkaas baanu hadeer aanu galay oo bac kaliya saar waxaanu hay'adaha ka codsanaynaa taakula ayaan ka codsanaynaa wixii taakula alfaano iyo dawladda aqalkayga waa naga dumay kuulka dabadna waanu soo qaxnay halkan baan u soo qaxnay markuu nagu dhacay cariishku nagu dhacay baan halka u soo qaxnay halkiina ku badbaadaysan fariista halka iyagaasaanu fadhinaayo dabadna ku sugaynaa waxaanu guriyihii ay noo taalo waxyaanu ku ganacsan jirnay oo ah maydii oo naga qoyay 2,000 oo kiilo oo naga qoyay dabeedna ay guryihiina aan ku suganoo ka cararno ka dhisanay boolalka ilaahay baa wax bixiyay hay'adaha samafalka iyo dawladda Somaliland geesta kale gudoomiyaha degmada Hulul Foos Xasan iyo ku-xigeenkiisa Jaamac Umar gudoomiyihii hore ee degmadaasi Hulul Cabdi Xasan Cabdi Weyne iyo sidoo kale xildhibaan Cabdi Muuse Warsame ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyay saameynta guud ee ay roobabkaasi ka geysteen deegaanadaasi xanig iyo wareeg iyo tirakoobka guud ee ay haatan hayaan annaga oo doonayna in aanu ogaano xaaladda dhabta ah ee deegaanadan degmada Hulul iyo xanig iyo wareeg dadweyne aad u tiro badan oo xoolo dhaqato iyo tuulooyin bay isugu jira inaanu ogaano oo khasaare laga soo sheegay ay geysteen roobabkii dhawaan ka da'ay degmada Elafweyn iyo nawaaxigeeda weygagii dhaweyd roobabkii duufaanada iyo dabeelaha lahaa waxyeelooyinkii ay ka gaarsiiyeen degmada Elafweyn iyo baaxadeeda oo koonaha ay waliba ugu sii badan tahay inta ay ag taalo degmada Hulul xoolo way ku lumeen geel iyo ariba leh beentuna ma fiicna wax waaweyn geel asaasan oo lagu soo sheegay Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Somaliland Elafweyn